السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamida barnaamijyada aan idinku tala galnay. Haddaba barnaamijkan waa kii saddexaad waa barnaamijkii habeennimo sabti ahad ay soo galayso taariikhdana ay ku beegan tahay 21 Febraayo sanadka 2026. qodobada barnaamijka aan idinku hayo waxa ka mid noqon doona muxuu yahay gantaalkan sida weyn loo hadalhayo oo ay maanta tijaabisay Iran. gantaalka loogu magac daray kalluumaysiga badda gunteeda wixii ku jiro la soo baxaa la leeyahay maraakiibtii Mareykanka dhibaa haysta. warbixin ku saabsan sheekada cajiibka waan idin hayaa. waxa soo kale aan idin soo gudbin doonaa warbixino ku saabsan Xisbullah hogaamiye ka tirsan oo u hanjabay Israa'iil caawa. haddaba muxuu ku hanjabay maxayse samayn doonaan Xisbullah tafaasiil baan idinkaga hayaa. waxa soo kale aan idin soo gudbin doonaa warbixino kale oo ku saabsan Al Jazeera oo warbixin ka diyaarisay isbahaysiga dawladaha islaamka iyo cabsida Israa'iil ay ka qabto arintaas. haddaba dawladahan ay ka baqayso maxay kale yihiin maxayse saameyn ku yeelan karaan Israa'iil wixii laga qoray ayaan iyana barnaamijka qaybta dambe ku faahfaahinayna. inta aan ku jirno warar cusub haday soo kordhaan asxaabay waan idin la socodsiin doonaa. kulanti wanaagsan asxaabay meel kasto aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni habeennimo. haddaba waa habeennimo sabti ah oo axad ay soo galayso taariikhduna waa 21 Febraayo sanadka 2026. haddaba barnaamijku waa kii saddexaad waxaynu ku bilaabaynaa iyadoo dhowr arrimood oo muhiim ah ay noo soo socdaan. gantaalka la yaab kale Iran ay tijaabisay maanta oo sabti ahna waan idin hayaa. hase haatee marka hore waxaanu ku hormaraynaa dowladaha carabta ayaa si weyn u cambaareeyay hadalkii xalay uu jeediyey safiirka dowladda Mareykanka u fadhiya Israa'iil. waxay ku tilmaameen ninkaan iska hadlay ninkaasaas kulligood waa qeylinayaan. ninkaas safiirka waan idin sheegay barnaamijkii saakayna waa ku soo qaatay oo barnaamijkii galabtan u malaynaya waa ku soo qaatay. ninkaas safiirka wuxuu leeyahay Israa'iil diinta ay aaminsan tahay ee Tawreedka kulaha ayaaba u ogolaanaysa waxa dhan bariga dhexe inay qaadato. yaa la hadli karo leey nahru niil ilaa Furaad maxana Masar ka soo bilow ilaa Ciraaq iyo Suuriya dhulkan Urdun iyo iskaba dhaafurto Lubnaan iyo waxaan oo dhan waa la maraya. dhulkaas oo dhan Israa'iil kulaha ay qaadanaysa. markaas Masar qeylinaysa Urdun qeylinaysa war ninkan muxuu uu sheegay haddii wax dawladiisu diidan tahay ay tahay ninka waa la aamusa la dhihi lahaa raali gelin ee dawladda ka bixin lahayd. waxaa la dhihi lahaa sheekadan meesha ku xir waa lagu bedelayaa la dhihi lahaa. ninka hadalkiisu waa hadal cad. yuhuudda wuxuu ku leeyahay Tawreedkaaba u ogol inay dhul badan iska qaadato ayada. macnaha diinta ay aaminsan yihiin Tawreedka ayaaba bariga dhexe siinaysa. marka nimankaanu niman meel u socdo waayo waxa aaminsan maalinba midaa la jajabsanaa. Iran hadda la rabaa inay isugu tagaan ay jajabsadaan. berito Turki meel kale lagu jajabsado. Sacuudiga iyo loo yimaado la jajabsado. muslimiintu dhan saas inta lagu mid inta loo kala furfuro la jajabsado mid kasta saas maaratay kulligood loo wada qaato dhulkooda la rabaa. waaba ninkan waa cadeeyay. haddaba markaan idin tuso wararka la yaab kale ee ninkan uu qoray saacadii ugu dambeeyay soo kordhay. telefishinka Sky News waxay leeyihiin eedeymo tiro badan ayaa waxa ay ku dhacayaan hadal uu jeediyay ninka la yiraahdo Hakabi kaasoo ah safiirka Israa'iil u fadhiya safiirka Mareykanka u fadhiya Israa'iil. wuxuu sheegay in xaqa Israa'iil Tawreedka uu siinayo inay Israa'iil waxay doonto qaadato. haddaba waxaa sidoo kale arikan si weyn u cambaareeyay Falastiiniyiinta iyo dowladda Urdun, Lubnaan, Suuriya, Masar kulligood way ka hadlayaan. ninkan waxaa la yiraahdaa Mike Hakabi wuxuu sheegay Israa'iil inay leedahay xaq diinteeda Tawreedkana ay siinayso inay qabsato gebi ahaan bariga dhexe oo dhan
laga soo bilaabo niil ilaa webiga kale ee layidhaahdo furaad. wuxuu leeyahay diintoodaaba saas aba qoraysuu leeyahy min laga soo bilaabo niil oo masra ilaa furaad ciraaq iyo dhulkan iyo markaa urdun iyo suuriya iyo lubnaan iyo falastiintaan lagu habsaday iyo waxaan maxay war meeshaan wuxuu leeyahay waa lagu kala tegayaa mar dhow. ninkan waa nin imtixaana waaye oo yaabla waaye, waana safiirka maraykanka u fadhiya israa'iil. marka xataa taytalo wataa nin safiir hore ah ma ah, nin diblomaasi hore ma ah. ninkan waa nin hadda xil haya, dowladdiisuna afkaa u xiran. macnaha waxa uu sheegaa raallia laga wadayahay waaye. carabay adinka idii taallaa waay, carab keliya ma lagu joojinaa mise dad kastaa lagu dari rabaa meeshaan. marka sheekadaas halkaas ayay maraysaa. qodobkaa marka halkaasaa kaga gudbaynaa. qodobka kale ee barnaamijkeena ugu xisaab badan baata aan idinaya wuxuu yahay iiraan maantoo sabdi ah waxay tijaabisay gantaal la yaab leh. gantaalkan sidiisaba waxaa la yidhaahdaa kalluumaysiga badda hoosteeda wuxuu ku jiro raamsanayaa. waa gantaal aysan horay u tijaabinaa lihin. gantaalkan marka muxuu gaarayaa 150 kilomitir ayuu gaarayaa. waxaana tuuri karaa doomaha kalluumaysiga laga kor tuuri karaa. xataa mid u baahan maaha alaab waaweyn iyo la ridaay. waana kalluumaysatada saasoo u kalluumaysanaa. biyuhu saas ugu dhex ordayaa. nimanka iraaniyiinta maalin walba wax cusub keenaya. maraykan way ka qaylisiyeen. maraykan wuxuu hubaysta dhan bariga dhexoogeeyay. waxa maraakiib meesha jooga, diyaaradaha meesha mid walba midka kale ka casrisan yaha maqlaysaa. diyaaradanu tan kale ka qatarsan tahay, tii hawada shidaalka ku siinayso. waxaasoo dhan oo huba awoodiisa dhan meesha suugay. goorba waa lala gedin doonaa u maleeyay markii uu baabi'i lahaa la joogaa. haddaba markaan idin tuso warka cajiibka ah ee caawa soo dhacay. telefishinka Sky News ayaa wuxuu qoray ciidanka ilaalada kacaanka ee dalka Iiraan ayaa sabtida maanta ah waxay rideen gantaal difaaca badda ah oo wixii loogu talagalay maraakiibta dhan inuu quuto. waxaa la yidhaahdaa magaciisa gantaalkan Siyaad G3 la yidhaahdaa. waa kalluumaysato, waa mid ugaarsanaya oo badda gudaheeda waxa ku jiro ugaarsanaya. waxaa laga tuuri karaa maraakiibta doomaha Siyaad Shirazi. marka waxaana la sheegay maanta inay ahayd markii ugu horeysay ee gantaalkan la rido. gantaalkan meel fog ayaa laga hogaamin karaa oo markaa uu ka dagaalami karaa. isagoo dadka ridaya aanay meesha ka agdhoweyn ayaa la ridi karaa. waxaana lagu tijaabiyey meel ku dhow marinbiyoodka la yidhaahdo Hormuz. marka telefishinka waxaa la Sky News qaybtiisa af carbeedka xarunteeda Dubai ku taala, laakiin ingiriiska iskale. wuxuu leeyahay nimanka ilaalada kacaanka alaabta ay rideen Siyaad sidiisa af carbeedka waa ugaarsada waaye. wax ugaarsanaya kalluunka iyo waxa kana ugaarsanaysaa markaa bariga joogtidna ugaarsi marka ugaarsada waaye. gantaalka badda gudaheeda 150 kilomitir ayuu wax ka ugaarsanayaa. meel fogna waa laga ridi karaa. ogow doon korkeeda laga ridi karaa, markabna waa laga ridi karaa. biyahana saasuu dhex marayaa. wax ay ka dhimayaan biyaha xawaaraha uu ku socdona ma jiraan. maraykan marka waxaa le waraa ku yaala. ruush wuxuu ku yidhi ka joog. shiina wuxuu ku yidhi ka joog. dowladaha dariska waxay ku yidhahdeen ka joog. haddaa isku gasho ahlan wasahlan soo dhawow waayo. ahlan wasahlan halkani maaw wixii aad kala kulato waxbaa naga siinin. maalin walba marka hal xabaa la tijaabinayaa bis jag. Siyaad aa la yidhahdaa G3. Siyaadka waa ugaarsadihii G3 aa la yidhahdaa. marka sheekadaas iyaduna waa cusub tahay. gantaalkaasna waxaa leeyahay walwal cusub ku keenay maraakiibta maraykanka ee badda daadsan. halkaa mushkilada ka haysata. qodobka saddexaad ee barnaamijka caawa idinkugu soo gudbinayo wuxuu yahay Xisbullah ayaa waxay leedahay waa aarsanaynaa yidhahdeen.
oo maxay aarsanayaan xalay si xunaa loo duqeeyay lubnaan barnaamijkii saakaa kusoo qaadanay waa ogtihiin waa ka sheekeynay dad badanaa lagu dilay tirada weliba dadka dhintay iyo dhaawacba way sii kordheen waxaa ku jira rag saraakiila oo ku jira xisbullah marka waxay taagan tahay xal aan ahayn inaan isdifaacno mahayn dowladda lubnaan heshiisaan soo qaadnay kan waxba way keeni weyse marka annagu waa dagaalamayna goormay dagaalamayaan xisbullah lama yaqaano haddaba marka aan idi tuso warkii ugu dambeeyey jiradda la yidhaahdo ra'yul yowm waxay leedahay kadib markii ay dhaceen oo laga hadlay xasuuqii ka dhacay deegaanka la yidhaahdo albiqaac ku-xigeenka madaxa golaha siyaasadda ee xisbullah waxa uu sheegay inaanay xisbullah haysanin khiyaar aan ahayn in ay dagaalanto oo ay wax iska celiso waxaan ahayna usoo haray ma jiro wax dambe oo aan xeerinayna malow leeyay haddaba ku-xigeenka madaxa golaha siyaasadda xisbullah maxamuud qamaati ayaa sabtida maanta si kulul uga hadlay xasuuqii deegaanka albiqaac ee ku yaala koonfur bari dalka lubnaan ay diyaaradaha dagaalka israa'iil ku duqeeyeen dad masaakiina halkaa ay ku laayeen kuwo kalena ay ku dhaawaceen wuxuuna sheegay in la gaaray wakhtigii xisbullah ay aamusnaanta ka bixi lahay ilaa hadda waxaan haynaa hanjabaad leh haynaa war kale oo xisbullah laga hayo ma leh xisbullah waa la sugaa marka waxay sameeyaan qadar xayeysiisha kadib warbixin telefishinka aljaziira uu ka diyaariyey isbahaysiga islaamka dowladahooda iyo israa'iil oo baqaysa iyo isbahaysiga israa'iil ay hogaaminaysa uu cagsiga ku yahay sheeko la yaab leh ayaan idiin hayaa kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeennii habeennimo qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka aynu maraynaa haddaba barnaamijka qaybtan waxaynu kusoo qaadanaynaa aljaziira waxay leedahay isbahaysiyaa samaysmaya dowlado islaama israa'iil way ka baqaysaa waxay cabsanaysaa israa'iil weliba turki iyo masar ay aada uga baqaysaa kuwan kale waxba muu aragtay dowladahan kale waxba muu aragtay laakiin turkiga iyo masar iyo isbahaysigooda aaday uga baqaysaa waa laba dowladood oo mandiqada kula yaala masar darisayba la tahay turkina waa kan halkan u joogaa suuriya u dhaxaysa hawshaan marka labadaa dowladoo aaday u baqaysa sacuudi uma dhowa bakistan uma dhowa kuwa marka isbahaysigan saameynta iyada ku yeelanay waa kuwan way khabiir marka militariya wuxuu leeyahy israa'iil bilaasha uga baqay u leeyahy isbahaysiga leeyahay ibraahimiya abraham midka la leeyahay oo trump kalkiisii hore uu dowlado badan soo geliyey haddana kuwo kale lagu sii wado inay galaan israa'iil ay hoggaan u ahoy marka isbahaysigan waa midka hadda la samaynayo dowladaha islaamku samaysanayaan waa bilcagsiga isbahaysigan abrahamka la leeyahy abrahamkan xertayaa ku jira dowladaha islaama ku jira imaaraadaa ku jira waxaa ku jira baxreydah ku jira waxaa ku jira morocco waxa kalaa ku jira laakiin muxuu caddeeyey ninka maraykanka wuxuu yidhi isbahaysigan kulligood waxay u khidmaynayaan ibraahimyada wixii gala israa'iila iska leh waxay farta ugu yeertay samaynayaan bilcagsi marka maxaa ku ah isbahaysigan islaamiga la yidhahda isagana oo maaragtay abrahamyadaas waxaan kasoo horjeeda marka gobolka bandiqada marka waxay leedahay jaziira marba xaalad cusubaa soo baxaysa hadda isbahaysiyadan abuurmaya iyaguna halistooday leeyihin aa leeyihin haddaba markaan idintusoo warbixinada laga qora sheekadan aljaziira waxay leedahay masar iyo turkiga waxay samaysteen taxaaluf islaami wax la yidhaahdo isbahaysi islaami ah kaasoo baqdin ku abuuray israa'iil marka arrinkaa marka way ka baqaysaa dhanka kale maxay aljaziira ka hadlaysaa ataxaalufu alislaamiya leedahay isbahaysiga islaamiga wuxuu kasoo horjeedaa oo uu la dagaalami doonaa ataxaalufu alibraahimiy isbahaysiga ibraahimiyada la yidhahduu la dagaalami doonaa u fiirsada meeshaa siyaasaad waaweynaa la ciyaaraya adduunka maskaxda fura see ula dagaalamayaan haddaaba la dagaalamayaa sacuudiga oo ku jira taxaalufu alislaami iyo imaaraad oo ku jira taxaalufka ibraahimiyada israa'iil xerteeda ku jira waa kan la isku dhacay waa kan ilaa soomaaliya somalilan dhulkan iyo la isku cayrsanayo yaman iyo suudaan iyo isbahaysyada ishaya ma arkaysaan marka saas waaye
Algeria iyo Morocco waa ishayaan. Algeria waxay ku looxtahay Sacuudiga iyo dadkana ku looxtahay. Morocco xaggaasay jirtaa iyadana oo Ibraahimiyada ku jirtaa. Haduukii marka dawladda Islaam oo Israa'iil u khidmaynaysan waa inay Ibraahimiyada saxiixda waay. xertaas galay. xertaas marka maxaa ka soo horjeeda التحالف الإسلامي إسبايسي الإسلامي كسور جاد مصر يا تركي باكستان يا سعودي يا دولة كلا قدرها كوجرتو دولة كلا كوجر إسبايسي والبلاري راسين marka hawsha iyaduna halkaas ka socota qodobadaas ayaa barnaamijkeena caawa ku soo qaadanay wixii cusub waa isla soconaynaa meel kasta aad naga daawanaysaa la gareey oo share gareey barnaamijka haddaad cusub tahay subscribe ka iloobi YouTube Facebook iyo follow gareey nabad